بسم الله الرحمن الرحيم قلبتنا ومركلة اتحادي قبرتين مركان مدبضا سوغي ايغي كفير صدي الرماه دحيا للصوماليا مركان ايغي دمعة iyo dulmiga iyo durdurada taala markaan eegay maalin walba sheeko cusub oo mujtamaca Soomaaliyeed aan dantiisu ku jirin maskaxdu waxay go'atay maansadan oo magaceedu yahay maansadii xaqiiqada waa tii runta ahayd bismillaah magaceeda waxa la yiraahdaa Soomaaliyey maqal murti iga dardaarana iyo xaalad moogtahay ku muujintiisii tixdoonoo mahduul iyo mala lagu samaynine mudan oo xaqiiqo ah Soomaaliyey maqal oo macnaha fahan isku maqan danteed moog iyadu isku maranay adowgaagu kugu maqan wuxuuna ku makaabsaday midowga haatan loonkee badbaadada la magac baxay malaha wuxuu la caan yahay jabhadihii markii hore qarankeena magac dilay oo murugtayna baday iyo macluusha gaajada kuwa inuu masayinay ku waayeen adeer ya Sheekh Xasan baa ka marag furay oo u marxaanti ah inay yihiin afartii jabhadood oo qaranka riday afartaan midda kale waxay tahay mucaarad wuxuu ahaan jiray xukuumadda markaasi muraaday ka eegtaan meelaha qaladku kaga jiro kuwa maanta jooga muran iyo ilaaq iyo maagis iyo dhimooye heedhade maslaxada ma taliyaan arrintaas waa maya idinkaana maraka afarta macneeye midda kale waxay tahay hadduu dani mas'uul yahay Puntland madax yahay maamulkeeda jecel yahay midnimada dadkiisa iyo dawladnimo mug weyn rabo wali madalka soo tagay daafaca madoobiyo ciidanka maagistiisa ciida maxamed mooye wax maslaxad dadkiisa dano iyo mashaariic federaalka kaga maqan isagoo mudici ka ah marna miyaad ka maqasheen taasumay hadday tahay Puntland meedadkeedii ismadii maxaa helay markay xaajo murugtaba marjaca loogu noqon jiray indheer garatadii maye muusanowga dumarkan waayahan maqlaaye xagee maray rageedii xeerka yaa mas'uulka dastuurka yaa mas'uulka baarlamaanadii maye dagaalkii mugdiga dhacay madficiyo rasaastii lagu laayay maatada maydkii jimcaha yiil ma markay arkeen bay nafta maadiyeeno midaan baaqanayn iyo mawd bay ka baqayaan mise maamul xumad iyo murugada arlada taal manfacay ka doorteen afarta muhiimka Soomaaliyey maqal oo macnaha fahan tixda Soomaaliyey maqal haddaan intaa ku dhaafo midda kale waxay tahay waa daahirto waxba kuma dadno kuwa doorashada daahinahaya waa dawladid waxay doonayaan inuu qaranku dumo waxay doonayaan dagaalkii xigtada waxay doonayaan dalowga iyo qaxi waxay doonayaan dayacaan ogeyn darxumooyinkii dib u noqoshadood bay doonayaan ummad yahay dareen siyaasadaha dedan iyo debinaday daalin iyo tuug ku daboolayaan dareen oo markaba u diyaar garow daafaca xornimo ummad yahay dareen duul wada dhasho isu diirego isku diinaho degaankoodu yahay dacalka Afrika dunida ugu wacan inaad tahay dareen daafaco markaa aad baan u salaamayaa ummadda Soomaaliyeed aad baan u jeclahay inay helaan qarannimo kaamila dawladnimo kaamila waxaan jeclahay inay degaan oo nabadoobaan
oo nimcadooda la soo baxaan oo qaxootigooda dalowga ay soo noqdo oo ardadoodu wax u barato oo ay nimcaadkooda ku xamdiyaan waxaan nimca kii kala gura qaska iyo qabyaaladda iyo qalalaasaha iyo jabhadaha la abuurayo baan ka soo horjeedaa soomaaliyana mayay tiri maya iyo mayay tiri ma yeelayno bay tiri maanta dawladdeenu mar labaad la dumiyaa kanuu muhanayo joog haddii kale mindida hoo moogta soomaali waa dhaaratay waxay ku dhaaratay qarankooda wixii raba inay ka dumiyaan inay daraan seeftooda laakiin waxa ka fiican nabad waxa ka fiican in la iswacyigeliyo waxa ka fiican in la isoga tusaaleeyo waxa ka fiican dagaal in wax wanaagsan la isu sheego kii diida abbaay wuxuu ku ducaysan jiray ilaahu cadowga kaanu ka maaranno naga qabo kaanaan ka maarmina noo soo hanuuni hadda waxaanu leenahay ilaahu noo soo hanuuni walaalaha iyaga habowsan ilaahu xaqa tus ilaahu dawladnimo tus ilaahu mucaaradka ka dhig mid wax saxa ee aan wax duminayn sidaasaynu rabbi ka barinay waxaan leeyahay soomaaliyey digtoonow